deegaanka fadhigaab ee hoos yimaada degmada Garadega galbeedka gobolka Sanaag ayaa asqaran loogu sameeyay Allah u naxariistay laba marxoo gacan ka xaqdarin ku dishay magaalada Fadhigaab. Allah u naxariistay labadan marxoon oo lagu magacaabo marxuun Cabdillaahi Maxamed Maxamuud iyo marxuun Najax Saciid Maxamed. Allah u naxariistay marxuun Cabdillaahi Maxamed Maxamuud isagoo shaqaalaha muruqmaalka ee wakaalada waxaana asqaran u sameeyay labada marxuun wakaalada horumarinta wadooyinka ee jidadka Somaliland waxaana madasha labada marxuun lagu aasayay goobjoog ahaa Maariya ku-xigeenka wakaalada horumarinta jidadka Somaliland Mustafa Faarax Qalab isagoo dhambaal tacsiya ka sida dhammaan shaqaalaha wakaalada horumarinta wadooyinka ee jidadka Somaliland si gaar ah tacsiya uga sida wasiirka wasaaradda horumarinta wadooyinka ee jidadka Somaliland Cabdillaahi Abubakar Maariya wakaalada horumarinta wadooyinka jidadka Somaliland Ahmed Yuusuf. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. taariikhdu markay ahayd bishii saddexaad sodonkeedii habeenkii sodonkeedii soo gelaysay waxaa lagu dilay magaalada Fadhigaab marxuum Ilaahay ha u naxariistay la yiraahdo Cabdillaahi Maxamed oo ahaa shaqaalaha muruqmaalka ah ee sida madaxa bannaan uga shaqaysta hay'adda wadooyinka waxaanu ahaa marxuum nooshida daamurka waxaana dilay gacan ka xaq daran waxaana la dilay saacada goorta ay ahayd 10kii iyo barkii habeenimo waxaana la joogay 7 qof oo kale ilaa 8 qof oo kale isaga nin kale waa la beegsaday oo ay isku hayb ahaayeen annagu waxaanu hay'adda wadooyinka hayb ma lihin haybteedu waa hay'adda wadooyinka shaqaale midaysan baanu nahay waxaanu ka xunnahay halkan horta uga tacsiideynaa qoyskii geeridaas ku dhacday waxaanu kaloo u sheegaynaa qaranka Somaliland in had iyo jeer dhimasho badan dhici jirtay oo had iyo jeer fidmada gobolka Sanaag ka taagan ay ummado badan ku dhici jirtay maanaan ka qayb gali jirin xabaalaha iyo dadka dhinta had iyo jeer maanaan tagi jirin ee dadka meelaha kala dhinta ninkan uu nooga duwan yahay ninkan wuxuu ka dhintay shaqaalaha ayaga ka dhintay waxa saaxiib uu nala ahaa hay'ad waxa lagu dhexdilay xeradeedii baa dhigiisii lagu dhexdaadiyay dareenkiisa ayaanu leenahay waxaanu leenahay qaranka Somaliland madaxweynuhu ugu horeeyo hay'adda wadooyinka waxay ku faraysaa in waxa weeye hawsha wax laga qabto in gacan ku dhiiglihii aan anaga noo turin ee aan qaranka u turin ee aan wadada u turin ee aan Ilaahay u turin ee aan muslimka u turin intaba in la soo qabtaa baanu Ilaahay ka codsanaynaa oo aanu ka codsanaa Ilaahay cid loo ashkatooday Ilaahay baa ugu weyn in la soo qabtaa baanu rajaynaynaa waxaana dilay hal nin sida naloo sheegay waxa kale oo halkan aanu markaas ka baraarujinaynaa inaanan hay'adda wadooyinka aanan ahayn qabiil waxaanu nahay dad dawlad ah oo midaysan oo wada qaran dhisa madaxweynaha qaranka ka xun wasiirka gaadiidka iyo maareeyaha ayaa ila soo hadlay aan wakiil ka ahay waanu tacsiyadeynay qabiilkii si fiican bay noola dhaqmeen waxaan doonaynaa halkan aan qaranka uga sheegno deegaanka uu ka soo jeeday ma beesha uu ka soo jeedo marxuumku markii aanu u nimi waxay nagu wareejiyeen inaanu marxuum Cabdillaahi Maxamed annagu inaanu aasno maanta waa aragtaan xabaashiisu xabaalaha meeka waxaanu ka aasnay cagafyadayadii waxa aasay 50 nin iyo 70 nin oo hay'adda wadooyinka ka ah annaga ayaa tacab gelinay waxaana loogu dhiibay walaaltinimo noogu dhiibeen beeshaasi waanu u mahadnaqaynaa beeshaasi si fiican bay noola dhaqantay si naxariis leh noola dhaqantay si walaaltinimo leh noola dhaqantay waxaanu kaloo isna halkan ka tacsiideynaa u tagi doonaa daradii ku dhacday ee iyaduna geerida ku dhimatay iyadana gurigoodii baan ugu tagi doonaa hadii la yiraahdo minka waa aaskii marxuumkii noo ahaa nala shaqayn jiray sida temporary-ka noola shaqayn jiray annaga oo tix raacayna si aan beelahaas arrinkaas wax dambe maaragtay aan u dhicin oo arrintaas aanay u filayaan kafaala qaadnay arrinka inaanu ninka annagu aasno waana beeshiina waa nagu maaragtay wareejisay oo arrinka way annaga gacanta noo soo gelisay annaguna waanu aasnay annaguna waxaanu dareenka aanu ka qaadanay u ahaa arrinka inaanu ka fududeyno meedka banaanka yaala aanu qarino aasno arrinkaana Ilaahay baa noo fududeeyay dhinaca kalena gabadh baa ku dhimatay oo gabadha iyo qoyskaana waanu tagaynaa u tacsiyeyn doonaa insha Allah bismillaahi kariim hay'adda wadooyinku waa hay'ad qaran oo qaranka Soomaaliland u adeegta iyada iyo shaqaalaheeduba waxay heegan u yihiin oo mar walba ay heegan yihiin wax kasta oo dhibaato dhacda dadka anagoo hay'adii wadadii ka shaqeynayna oo qarankii u hayna in haday dhibaato dhacdo aanu dhibaatada ka qayb qaadano waanu ka qayb qaadanteynay sida abaaraha hadii dhib kale tan oo kale maanta ay dhacdo iyadoo madaxda hay'aduna ay mar walba diyaar u tahay oo nagu garab taagan tahay insha Allah bismillaahi tan halkan ay shaqada ka soconayso waa Fadhigaab
halkan hawshu aan maaragtay nagaga dhacdayna waa Fadhigaab waxaanu diyaar u nahay mar walbana wixii jiraba inaanu ka qayb qaadano ilaahay idankii waxaanu maaragtay baaq u diraynaa labada beelood ee nabadgelyada hore ay u dhaxmartay ee maanta aan maaragtay gacanta laga tashanay ay dhacday waxaan leenahay inay sidoodii walaalo u noqdaan oo arrinka ay xakameeyaan ay iska qabtaan ninkaana in la soo qabto arrinkaasu inuu noqdo dad wada yaalo sidii ay walaalo ahaayeen baanu baaq u diraynaa cuqaasha iyo maaragtay isimada dhinaca gacan ku dhigluhuna maanta markii aanu goobta joognay waxay ballan qaadeen arrinka inay maaragtay ka howlgeli doonaan iyadoo barasaabkii iyo wixii dhan ay joogeen shaqaalaha ka tirsanaa Cabdilaahi Maxamed waxaan uga taxsiyadeynaa qoyskii uu ka dhintay iyo shaqaalihii uu ka tirsanaa iyo degmadii uu ka soo jeeday iyo beeshuu ka soo jeeday waxaan uga taxsiyadeynaa marxuumka geerida naxdinta ku dhacday ee gacanta ka xaqdaran dishay Allah yarxamur raahimiin dhammaanteen waxaan ku qorannaa la ilaha wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan uga taxsiyadeynaa marxuum Cabdilaahi Maxamed oo ka mid ahaa shaqaalaha RDA muruqmaalaha naga tirsanaa annaga naga mid ahaa arrintaasna sidii odayaashii horeba soo sheegeen ama madaxdii hore soo sheegtay wuxuu ahaa shakhsi naga tirsan waxaan uga tacsiyadeynayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehliyadii iyo dhammaan ummadda islaamka geerida xaqdarrada ah ee ku timi marxuumka aanu xabaashiisa joogno alla yarxamur raaximiin ilaahay ha u naxariisto ilaahay isagaa naxariistay ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رحمة بان يو جنة نوغبرينا labada shakhsi ninka iyo gabadha ku dhimatay maanta meesha la yiraahdo Fadhigaab waa geeri naxdin leh waxaan leenahay labadii qoysay ka baxday hawl boogadhayo waa waqti adduunku cadowgii corona u diyaar garoobayo wixii jira waxa la dhaafo lahaaba geeridana dhacday Raan Maxamed Raan telefishinka caalamiga Ariel TV degmada Garadag